السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير كسر هذا يوتيوب بيج كنا عوضة وحصل في العقائد دونا هردعة كل ماذا بريمير ليج أسبوع لو ديل دونه كوحية بريمير ليج ديل دونا يا سفيرن دونا يا سادالين تودا هدي أنكوب أنت أنا أوجد جرين فنغيتك سادالين كل ماس وهذه قاعد سنة شير إلاك سبسكرايب من النص مثلا سبسكرايب كان غير من فضلا وأنه مهم هدا أوجد جرنا فنغيتك كل ماس كلهم كوجور ما أنا كسب دي واحد ديل دونا كوحة كريستال بالاس ليفربول kooxda weyn ee Liverpool sanadkan horyaal u tartamayso waxa waaye ani misliin tartanka horyaalka ka qayb qaadan doonta la ka dartan waxa waaye aydaaba horyaalka hogaaminayso Crystal Palace waxa waa ka tala sanadkan kulankaas waxa waaye waa aniga waxaan qiyaasaa inay kooxda Liverpool ay waliba goolal badan uga badan doonto kooxda Crystal Palace ma fahant marka Liverpool sanadka waxba laga qaban karo ciyaartooyda dhan waa Salah ninka la miisaanka culus waa kacsiin qadkeeda dhexe maxaa kimis سبوس لا ما ها عادي ما أيضا جوتا دياس وحسنا وكعزين مركز ليفربول عوا أسبوعا قول أورجينا وليبو حرجينا إن جول بدون دونان سيدو كلاته صالح أصير إنه جول للدونا يرجينا كل كاس هدي صاداليو والنتيجة أقصى لا دونتو سدح يحبا ترينيل إنه بدون ليفربول جول مو بلغنا اللي كان ليفربول دفاع عيد شبوة هذا halkaas ugu sii gudubno sidoo kale to 12 saac waxa dhiri doona kooxaha Arsenal iyo Southampton Arsenal waa Premier League Man City dhibca ka qaadaysa yaa kale ka qaadanayo afar eber Arsenal ku badanaysa Southampton waa Serbia sanadka u laabanay indheeda u jeeday ilaa hadartan waxba ma hayse afar eber Arsenal siina marka waxa waa goolasha Arsenal inkastoo ciyaartooyda dhanbo macal daaficiida oo gool iska dhalinayo lama qiyaasi karo yaa gool u dhali doona laakiin waxa ogahay inay afar iyo wax ka badan ku raay doonto haddii halkaas ugu sii gudubno sidoo kale to kooxda Brentford iyo Watford ayaa dheel doono iyo Wolves Brentford Brentford sanadkan wax hadda weyn kama arkin Wolves iyo Brentford barbardhac waa laba hal ay noqonaysaa barbardhac waxa isma dhaanto waa labadooda Leicester iyo Bournemouth soo kaato waa dheelayaan Leicester oo Serbia ka imaatay Bournemouth saddex ciyaar waxaan ku siiyay kooxda Bournemouth inay ku raay doonto هذا halkaas ugu gudubno sidoo kale waxa dheeli doono 12 saac kooxda Manchester City iyo Fulham Man City usbuuc hore waa lagu dhagay usbuucan waa lagu dhagaa taas aaminsana Fulham miisaanku culus waaye kooxaha waaweyn waa ka shaqaysataa dhibcay ka reebataa maalmo ku dhagtaa sidii inay hawsheeda wada doonto anaga rajayna marka Fulhamay hana ceebayna nimankan intay ka maqan yihiin Rodri iyo De Bruyne intay ka maqan yihiin De Bruyne horta inuu ka maqnaana ma maleynay Rodri intuu ka maqan yahay فرقها لودو مفهوم مركب فولهام يمان سيتي درو لبا او رجي sidoo kale West Ham iyo Ipswich dheel doonaan 12 saac West Ham gool Ipswich waxa Serbia ka imaatay ciyaartooy fara badan ma haystaan weerarkooda wuxuu ciyaartooyda dhan dadaalan way labi eber West Ham macnaha saadaalna waa saadaasheeda waa isbedeli karaan wax mar walba macnaha saana wax u saadaalna qasab ma inuu dhacaan sidoo kale Everton iyo Newcastle waxay dheel doonaan hal saac habeenimo hal saac iyo bar habeenimo soo galee kulankaas saa qiyaaseeno West Newcastle inay bad doonto ay rajaynayna sababtoo Everton inkastoo ciyaartooy fiican ay haysato laakiin Newcastle isku bardhigi karto Newcastle sanadkan waxay soo gadatay suuqa si fiican ay u gashay ciyaartooy badan ay soo gadatay marka Newcastle ayaan guusha siinayna halka ay ku raay doonto 2-1 waa sida qiyaaseen inay ka badatana macquul waayo hadda Newcastle waxa way weerar fiican haysataa maalinimada sidoo kale hadda waxa dhil doono kooxaha Aston Villa 10 saac galabnimo iyo Man United kulanka weyn oo la wada sugayo macallin Ten Hag ama uu ku baxay ama uu ku joogayo waa Aston Villa Bayern Munich oo 7-8 dhibto ee waxa ka soo qaadatay 3 dhibcood cad ka soo qaadatay gurigooda ku dubatay haddana Ten Hag wuxuu rabaa inuu ugu tago gurigooda oo dhibco ka soo qaato ma soconay asal arki doona waxaan saadaalina kulankaas inay guusha raaci doonto kooxda Man United maadaama kulankan laga badiyay inay boorkiis ka jafi doonaan ciyaartooyda waxay kala cadaan doontaa ciyaartooyda inay tababaraha Ten Hag inuu joogo ay rabaan iyo inayba ayaga macnaha ka niyad jabeen waxay kala cadaan doontaa kulankan Aston Villa si u dheelaan haddii gool u keenaan macallin Ten Hag ee dhabar ku xirtaan dhahan ilaa waxa waa macallin Ten Hag kulankan lama burunaayo annaga u dagaalamayna haday dhaan gool keenaan markaas waa rabaan waa micneed kulanka hadartaan oo FC Porto waa dagaalameen laakiin maxay kugu taala shaxda Ten Hag ba qaldaneed kulankaana waa arki doontaan shax qaldan ku soo gali doona war shaxda rag raacana Bruno ku soo gasho garoonka hadaa rabtid inaad natiijo ka keento meesha Premier League waa inuu
kubad abuuris iyo gool iyo waxaas dhan iska dhaaf muhiimaddu waxaa waa inaad gooshaada difaacatid banooniga markii lagaa haysto ciyaartoy banooni ku raacata ay heshid gool waa iska imaana san ku heshidba gool waa hele laakiin qadka dhexe iska soo adkay Ugarte Maino iyo Mason Mount kusoo bilaab Bruno xitaa fadhiisi ma fahad Rossi waa laga qaliyay marka Aston Villa iyo Man United guusha waxa ku siinaa 2-1 kooxda Man United sidoo kale waxa dheeli doono waa saa jecel sidoo kale waxa dheeli doono Chelsea iyo Nottingham Forest waa simple Nottingham Forest waxay ka soo qaadatay dhibco Liverpool ka soo qaadato lama dhayalsan karo Chelsea nimanka ogeyn waa laakiin inkastoo ay wadada guusha cagta saareen ay kulan walba badinayaan 3-1 aan guusha ku siiyay kooxda Chelsea inay raay doonto ma fahad halkaas Chelsea uu gudubno kulanka ugu dambeeyo oo maalinka axadda la dheeli doono wuxuu soo gali doonaa maqribnimada xilliga Soomaaliya 12 iyo bar habeenimo waxaana la dheeli doona kooxaha Brighton iyo Tottenham waa kacsan tahay ma fahad marka dhibca raadis waa Brighton sidoo kale koox adag waa laakiin sanadka waa ka dansantahay soo Tottenham waxaa siinaa 3-1 inay ku raay doonto rajaynayna halkaas marka waxa ku soo gabagaboobay saadaalinteeni iyo hordhaca kulamada Premier League waxaan dhan kulanka ugu muhiimsan isbuucan kulanka waxa waa Newcastle Aston Villa iyo Man United kulankaas oo umada dhan adduunka ee isha ku wada hayaan xitaa kooxaha kale Premier League ee fiirnaan macallin Ten Hag ay waxay rabaan Ten Hag inuu sii joogo rabaan kooxahan Premier League ka dhisan oo dhan iyo taageerayaasha kooxaha kale oo United aan taageerin oo dhan in Ten Hag oo joogo rabaan oo waxay u arkaan Bajanis intuu ninkan joogo marka waxay leeyihiin Aston Villa haddii ay raayso Ten Hag toos u baxa waa ku dii laakiin haddii Aston Villa laga raayo Ten Hag wali rajo leeyahay kulankii Porto Barejo soo galay macna laga ma soo rayn kulankan hadduu raayo rajo leeyahay oo ku joogo hadduu laakiin Barejo galo rajo ma laha hadduu laga raayana kaba daran ma fahad marka Ten Hag aniga waxaan rajaynayaa kulankan New United inay baas waa rabaa waa la jeclaa guul laakiin Ten Hag si uu noo dhaafay darteed in laga badiyo ay jeclaan lahay laakiin aniga waa aqaana United saan oo kale markii macallin la buro rabo ay dagaalamaan ciyaartooyda sanadka hore waa weyd meeqa jeer ay macna asoo kulankan la burna la u dagaalameen sida kulanka FA Cup oo kale oo semi finalkiisa iyo finalkiisa waa dagaalameen markaas inay u dagaalami doonaan ani aaminsana laakiin ilaa intee socod doonta haddii ciyaartooyda maalin walba ay dagaalami karin maalin walba aad natiijo helaynin hal kulanka la buro rabo la natiijo raadina wax ma ku tarayso fahad marka Ten Hag xataa hadduu kulanka Aston Villa raayo kulamada ku sii xigo sidii ogeyn leewa United ogeyn leewa Ten Hag ogeyn oo shaxdiisa qaldaa leewa ma fahad warninka ciyaartooyda oo soo gad 60 milyan wuxuu ka soo bixiyay Mason Mount ma isticmaalo Ugarte 60 milyan oo ka soo bixiyay ma isticmaalo yaa kale wax ka soo bixiyay Anthony 80 milyan oo ka soo bixiyay ma isticmaalo ninkaas marka mustaqbal muu noqdaa ana mustaqbal muu noqdaa wuxuu mustaqbal noo noqdo mare inuu na dhaafaa qeyr noogu jiraa intuu waqti kale naga cun lahaa 2 sano kale naga cun lahaa oo koob aad 4 tartan ka qayb galona 4 koob ka qayb galona oo koobkaasna laga soo reebi lahaa kadib la buro lahaa waxaan u dhaanto Ten Hag oo kor iyo soo socota waa ku jeednaa waxa waqtigaadii ku jirta ku bixi lahayd niyo haddana dhaaf hadda intay goor tahay oo hadda seasonkeena wali wax ka bedeli karno na dhaaf anaga wax kala raadsan adigana wax kala raadso marka intaas ayaa ku soo gabagabeynaa falanqaynteena kulamadaas inta kulankaas kulan lamid ku kulmi doono please waxa idin ka codsanaynaa share like iyo subscribe iyana laga hilmaamin fadlan videoga markuu intuu dhamaanin ka hor markuu dhamaadka joogo ama markuu bilaaw koowaadba noo saara waan idin ka codsanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu